walaalo, waa aabbayaal iyo ilaalo. Waxay hoggaamiyaan qoys maraya dhibaato. Kooxo wareega oo ka mid ah libaaxyada aarka kuwaasoo rabaan inay goobta la wareegaan. Dagaalyahano leh khibrad aad u sareysa iyo isbeddelo ku yimaada xagga xukunka. Dhammaan waa kuwo qalqal gelin kara inay qoyska kala diraan. Suurtagal ma tahay tani inay noqoto gabagabada qoyska Insifo? Walaalaha Insifo waxay digniin siinayaan dhammaan. Kani waa dhulkooda. Labadan hoggaamiye ee da'adooda ay tahay 8 sano waxay dhulkan ka talinayeen muddo dhan 3 sano. Sida badan xayawaanaadka labka ah waxay maamulaan qoyska muddo 2 sano oo keliya. Walaalaha waxaa loo arkaa inay yihiin awood ku soo korodhay waadigan. Dowrkoodana wuxuu yahay inay difaacaan deegaankooda iyo qoyskoodaba ayna ka difaacaan libaaxyada kaloo aarka oo raba inay goobta xoog ku qabsadaan. Labadan aar waxay dhaleen cagabaruuryadan kuwaasoo da'adooda ay u dhaxayso 5 bilood ilaa iyo 3 sano. Labadan aar xiriirka adag ee walaaltinimada ka dhaxeeya wuxuu soo bilowday yaraantoodii markii ay dhasheen. Jiif waa aarka sida weyn nafsadiisa ugu kalsoon, halka Nooch uu ka kalsooni yar yahay, hase ahaatee wuxuu ku faraxsan yahay walaalkiisa inuu hoggaanka u dhiibo. Deegaankooda xagga galbeedka waxaa ka xiga webiga Wangua. Jiif dhawaqiisa wuxuu gaari karaa 114 decibel. Wuxuuna gaarsiin karaa 8 kiiloomitir ee dhulka guntiisa. Waana fariin cad oo ugu dirayo aar walbo cadow ah inuu asaga yahay Jiif hoggaamiyaha goobtan. Jiif dhawaqiisa wuxuu gaaray aar keligii socda. Sida badan xayawaanaadka labka ah qoysaskooda waa ay soo faaruqaan markii ay gaaraan 3 sano. Waa ay xoogaysteen waxayna raadinayaan ugaar. Aarkan lama tartami karo Jiif. Hase ahaatee libaaxyo kale ayaa halkan ku sugan. Dhanka bari ee webiga waa xuduudda deegaanka ay degan yihiin walaalaha. Xilliga abaarta markii la gaaro, webigu waa isha keliya ugu muhiimsan ee ugaartu meel fog uga imaato. Waxaa kaloo soo gaaraya goobtan libaaxyada kale ee cadowga ah. Walaalaha waa inay ilaashadaan deegaankooda iyo qoyskooda. Waxaa muuqata ugaarta cararka ay u carartay webiga in ay ku badbaaday. Hase ahaatee mid ka mid ah libaaxyada goosha ah ayaa la soo baxday dhagarteedii. Yaxaas ayaa kula tartamayo.
ugaartan ma mudna darteeda in dagaal loo galo. Qoyska maanta ugaar ma laha. Mid ka mid ah cagabaruuryadii ayaa looga soo tagay webiga dhankiisa kale. Webiga ayuu ka cabsanayaa, waayo halkan yaxansyada oo keliya khatarta kama taagna. Faraska webiga oo ah jeerta oo miisaankeeda uu yahay tamalaab miisaankiisa, ayaduna waxay sababi kartaa khatar. Dhiirigelin yar uu ka helay kooxdiisa ee jooga dhanka kale ee webiga, ugu dambayn waa uu la midoobay. Mid ka mid ah libaaxyada ayaa ah mid aad u dhiiran, hase ahaatee durbo waa uu soo laabtay. Cashar ayuu ka bartay. Webigu waa meel khatar ah.